taliyaha hoggaanka howlaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Ahmed oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka Somali Cable ayaa ka hadlay wareejintii ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu wareejiyay tuulada ciyaaraha Soomaaliya oo ay horay u deganayeen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. General Ahmed ayaa sheegay in taliskii daraawiishta ee barisamaadkii dib loo yagleeli doono isla markaasina lagu aasaasi doono Stadium Muqdisho oo ay ka howlgali doonaan. sida la socota ciidanka booliska Soomaaliyeed waqtiyada haduu dambeeyay waxa ku yimid isbedel xagga waajibadooda arrintaas iyada ah markii mas'uuliyiinta qaranka siyaasad ahaan lagu heshiiyay ama wali wasiirada ay soo saareen in mataqaanaa ciidankii nabad sugidda hubaysnaay lagu soo wareejiyo ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa taliyaha ciidanka booliska ku aamiyay in abaabul iyo habeyn cusub lagu sameeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa jiray awalba oo shaqayn jiray taliska daraawiishta wax la yiraahdo arrintii ayada ah taliyaha booliska ciidanka booliska Soomaaliyeed uu go'aansaday inuu arrintaas iyada ah uu ku aasaaso ama xaruntii ugu horreeyay oo ka howlgalaan ay noqoto xaruntan hadda aan taaganahay Stadium Muqdisho. waxa kale oo taliyaha hoggaanka howlaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ka dhawaajiyay in ciidamada AMISOM horay looga saaray xarumo muhiim u ah bulshada oo ay ka mid tahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed isla markaasina ay soo dhawaatay waqtigii ciidamada ajaanibta ay dalka isaga bixi lahaayeen. sida la socotaanba ciidamada ajnabiga ah ee wadankeena jooga marba marka ka dambaysa waxa go'aan la sii gaaraya waqtigii waxa soo dhawaanaysa waqtigii ay bixi lahaayeen. hadda ka horna jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa ciidanka booliska la wareegay oo hadda intaas oo kun oo arday oo Soomaaliya ay dhiganayso maalintii aan madaxweynaha halkan yimid oo kormeerka uu ku yimid waxa la go'aamiyay in lagala wareego ciidanka AMISOM halkan degan sidaad arkaysaanba maalintii madaxweynaha kormeerka noogu yimid ilaa hadda wixii ka dambeeyay waxa sii ballaarinaysa waajib gudashadii ciidanka booliska Soomaaliyeed. General Ahmed taliyaha hoggaanka howlaha ciidanka booliska Soomaaliyeed mar aan weydiinay su'aal ah in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay xarun u noqon doonto garoonka ciyaaraha Muqdisho ee Muqdisho Stadium ayaa waxa uu ku jawaabay adeer sida aad la socotidba ciidanka booliska Soomaaliyeed waa bulshadana waa booliskana waa bulshada haddii aan mid haysan gooni u haysan lahayn jaamacadda ummadda Soomaaliyeed xarun ciidanka booliska ku fiicnaan lahayd oo haysan lahayn annaga bulshadaan u adeegnaa sida iyadaba maalintii la wareegay jaamacadda ummadda ilaa maanta wixii ka dambeeyay waad arki kartaa horumar ka socdo iska daayacnaa inaan sii hayno saacadan haddii la yiraahdo ku wareejiyay wasaaradda iyo iska lahayd isla haddaan ku wareejinayna duleeyada maxaa yeelay waa garoonka ugu weynaa ee Afrika oo dhan ee kubadda cagta. tuulada ciyaaraha Soomaaliya oo ay ciidamo ajaaniba deganayeen muddo ku dhow 10 sano ayaa si buuxda loogu wareejiyay ciidanka booliska Soomaaliyeed. Cabduqaadir Cumar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. telefishinka Somali Cable.